بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ولا ليال ما أنت محا عصب ما عيقنا وعبد الرحمن ما أنت وحان نيسو قدبنا يا شيكوين عصب أو دعدوين دعاه وأدونك كدعا خاصة جزيرة العرب أي كدعا قصوين كأن إنيها يا وقصوين iniyaab gelin doona aad la yaabi doontaan waxyaabaha adduunka ka dhaca ama ka dhaca waddankan aan joogo. qisada maanta aan ku bilaabayo waxay tahay shayga dulmiga la yiraahdo waa laga fogaadaa. dulmigu qofka dulmilaha ahi dulmigiisu adduunkana waa ugu yimaadaa aakhirana waa uga dambeeya. laakiin cuqubada aad gashaa oo aad bini aadamka ka gashid waa mid kuu soo degdega. qisadan aan inii hayo aan horeyba u gale waxaa dhacday nin odaya ayaa nooga sheekeeyey. wuxuu yidhi waxaa jirtay meel qaryad yar ah tuulo yar ah ayaa waxa ku noolaa nin odaya. aduu oday nimanka raggaas oday weynna maaha, nin adiga iska dhalinyaro weyn ah oo ilaa dhowr iyo 40 jir ah. reer baa u jooga, xaas buu leeyahay, ilmaa u jooga, shaqo la'aan baa haysa, duruuf baa haysa, raatib iyo ma uu qaato wax mushahaara, dowlad uma shaqeeyo. adduunkan maaha. wuxuu furtay buu yidhi meel basta yacni meel yar ah oo khudaarta lagu iibiyo. uu khudaarta ninkani ku iibiyo ayuu furtay. meeshaasuu khudaarta ku iibiyaa. habeenkii markii uu soo dheelmanayo ayuu wixii ilaahay uu ka siiyey meesha uu ku risiqay ilmihiisa u soo qaadaa. iyo reer la derisa oo agoon ah, naag islaan ilma haysata agoona oo la derisa. odow guri wuxuu degan yahay 2 qoloo yar yara oo ardi yar ah ayuu degan yahay oo isagu leeyahay. 2 qol buu degan yahay. meeshii saasuu tagaa, subaxdii buu furaa, wixii ilaahay siiyo buu ilmuhu wixii ka dhidhiman buu ugu soo iibsadaa. khudaarta wixii ka soo harayna waa uu soo qaada. ilmihii yaryarka albaabkay ku sugayaan buu yidhi. ilmihiisii albaabkay kusii sugaan. aabbaa imaanaya maqribkii markay tahay bay albaabka isa sii dhoobaan. aabbaa imaanaya soo socda. odaygii wuxuu sidaa ahaadaba duruuftooda waa iska ladan yihiin. haddee waa reer odagii joogo oo odagii wax daberayo. waxay sidaa ahaadaanba maalintii dambe ayaa odagii geeridii u timi. geeri mafaaji'a ah baa odagii isaga timi. tii rabbi baa u timi. odagii waa dhintay. odagii markuu dhintay islaantii uu qabay ilmihii cirkii iyo dhulkii baa ku madoobaaday. wax ay samayso ayay garan weyday. adduunkan maaha. dadkii jiiraanka ahaa baa wax u keenkeena. dadka jiiraanka ah baa macnaha wixii ay awoodaan ku sadaqaysta. ayaan markay sidaa ku jireen wiilka wiilasha u weyn wuxuu gaaray markii uu dugsigii sare gaaray thanawiya inuu macnaha uu galay ayuu arkay oo cumrigiisii uu 18 jiro ayuu wuxuu arkay duruufta reerkoodu ku nool yahay. wuxuu yidhi hooyo duruuftan kumaynu noolaan karno, sidaana kuma jiri karno. bastadii aabbahay uu lahaa ayaan furanaya. bastadii uu aabbihiis lahaa ayuu tegey oo na nadiifiyey oo xoogaa habhabaystay. meeshiisii buu furtay. kalcaada sidii aabbihiis uu wax ku waday ama uu reerka u dhaqi jiray ayuu wiilkii weynaa uu reerkii ku dhaqay. sidii ayuu meeshaas subaxdii u ka lahaa. wixii alla siiyo ayuu ka soo qaataa. maqribkii buu keenaa. ilmihii sidaasay ilaahay uu ku risiqay. ayaan markay joogeen oo ilaahay uu ka saaray dhibkii
badnaa iyo duruuftii badnayd ayuu wiilkii uu ilaahay amarkiisa xanuun baa u yimi khabiitha sida uu odagu leeyahay. qaryadan marka waa meel adduunku baabuur ma lahan hadduu ilaahay waa kuu roon yahay isgaarsiini ma jirto, telefoon ma jiro. waa qaryo baadiye ah oo jasiiratulcarab ka mid ah. sida uu sheegayo ninka odaga ah oo nooga sheekaynayana waa macnaha jasiiratulcarab waddankan aan joogo ayay kaga taalla. ninkii marka wiilkii waxa u yimi marad khabiitha ayaa u yimi. waxa loo dhigay meeshii magaalo ugu sokaysay agrab beled 300 kiilo ayuu u jiraa. halkaasaa loo dhigay wiilkii. dhakhtar baa meeshii la geeyey. dhakhtarkii wuxuu kashifay inuu wiilkani uu jiro halisa qabo. waxaa la yidhi jiradan waxaanu ku daaweynaynaa, waa dabcan waa brayvat weeye, mustashfuhu waa mustashfa khaasa. waxaanu ku daweynaynaa baa la yidhi lacag aad u tiro badan oo 100 kun gaaraysa malaha baanu wiilkan ku daweynaynaa baa la yidhi. cudurkan waa in laga daweeya. waxaa dhacday islaantii hooyada ahayd oo wiilkan dhashay cirkii iyo dhulkii baa ku madoobaaday. wiilkii waa ay ka soo kacday oo waxay tidhi muwaasalaadku waa iska yar yihiin, ma jirto adduunyadan wax la raaca ma jiraan. markii ay meesha tuulada aadaysidna muddaad baabuur sugaysaa, markaad ka soo tegaysidna muddaad sugaysaa. islaantii waxay tidhi waa ay soo kacday oo waxay timid qaryadeedii. gurigii bay waxay ku qoreen booskii ay lahaayeen oo odagii ka dhintay ayay beec ku qoreen. beec bay ku qortay. waxay istiri bal wiilkaaga aad ku daaweysatid, hooyo waa iska beer jilicsan tahay, wax walbay kuu horaysaa. ilaahay hooyooyinkeen ma cadaabo, ilaahay hooyooyinkeen haw naxariisto. inta dhimatay inta noolna allaha xafido. marka walaalayaal, gurigii bay beec ku qortay. niman bay tiri iisoo iibiya gurigii ayaa iib lagu qoray. maalintii dambe baa nin qaryada ka mid ah oo xoogaa lacag haysto, nimankaas wax rogrogto tijaarta ah ugu tijaarsan meesha, wuxuu yidhi gurigii waxaan idinka siinayaa 400 kun. 400 kun uu yidhi khalaas, waa guriga noo kala wareejiya, lacagtoodaan siinaynaa. intii de la kala wareejinayo oo waqti bay qaadanaysaa. islaantiina wiilkeedii weynaa baa dhakhtar kaga jira. waxay tidhi inta aad waraaqaha dhammaynaysaan 200 kun hanala sii siiyo aan wiilka ku cilaajto. 200 kun buu ninkii taajirka ahaa sii siiyey. 200 kun bay waxay tiri wiilka ku xigay ayaa weynaaday oo 17 sano gaaray. wiilkii bay waxay tiri waryaa lacagtan qaado nimankii u gee lacag 100 kuna wiilka daaweynaya ha lagu daaweeye wiilkii. anigu ilmihii iyo kama tegi karo oo nimankan iyo de gurigii sidii ay ula wareegi lahaayeen iyo kama bixi kare. wiilkii yarka ahaa ayay shandad u soo qaaday, ayay shandad ugu soo riday lacagtii. markay shandadii ugu soo riday buu soo kacay. meeshii wuxuu yimi baabuurta laga raaciyay nimanka kadaadiinta ah. kadaadiinba ay dhulkan laga yiraahdaa. nimanka kadaadiinta ah oo dadka gura nin ka mida ayaa meeshii bay timi. buu yimi wiilkii. kadaadiintii wuu sugay wakhti habeennimo ah bay ku noqotay. habeennimadii baa nin kadaada ayaa u yimi. xaggeed u socotaa? waxaan u socdaa magaalo hebla. waa magaaladii uu u socday. magaaladii ayuu markaasuu yidhi aniguna magaaladaasaan u socdaa. markaasuu yidhi aniga waxaan dhowrayaa dad dee keligaa ku qaadi maye. wiilkii waa uu fekero wuxuu yidhi intii aad meeshaan caawa dhan fadhin lahayd haddana oo ninkan kadaadka aad la sugi lahayd maad xoogaagiisa siisid ha ku qaadee. wiil yaroo 17 jira oo aan siyaasad si wax loo qariyo iyo si wax loo macnaha laysu ilaaliyo midna aan garanayno sinil muraahiq ah weeye. wiilkii ayuu wuxuu yidhi anaa ku siinaya yalla. waa uu la heshiiyey. intii ka dhimanayd dadkii buu lacagtii buu yidhi baan ku siinayaa. adigu wiilkii waa uu kaxeeyey. waa la sii wada sheekaystay. dariiqii baa la maray. wiilkii yaraa sheekadii oo dhan buu qisadii
ayuu uga sheekeeyey. ileen ma ahan ilmo garanaya waa lagu dhacayaa iyo dhibaataa jirta iyo daalib meel walba waa jooga. wiilkan yarka ah marka sidii buu markii meel dhexe la marayey ayuu ninkii inta shaydaan uu waswaasiyey buu istaagay oo yiri wax yar halkanaan baan istaagayaa isug meesha intuu istaagay meel laamiga dhinaciisa ah ayuu yiri wax yar gaariga kadib gaarigii buu wax yar buu yiri meesha aad fadhiid baan alaab ka fiirsanayaa. wiilkii wuu u soo wareegay meeshii buu inta turuntureeyey oo meeshii waddada ahayd ka tuuray oo meel kaynaho dhinaceeda ah geeyey oo toorey qaatay ayuu meel walba ku gooyey. meel walba wuu dilay dee. markuu is yiri alla ilaa naftii waa ka dhacday ayuu iskaga tegey. markuu iskaga tegey ayuu lacagtiisii buu qaatay wixiisii buu gaariga gashaday magaaladii uu socday buu tegey rukaab buu ka soo qaato tuuladii buu ku soo noqday. habeen labaadkii meeshii markuu marayey niman rukaaba dad baa la socda gaariga u saaran meeshii markuu marayay ayuu istaagay oo wuxuu is yiri ilaa nin qof bani aadana qofku hadduu dhiig qabo dhiigga islaamku oo xaqdarrada ah haddana agoon ah ilaahay kugu saamixi maayo waa kuu soo dedejinaya waa cuqubo adduuntii tan la galo tan ugu xun wey. wiilkii meeshii buu istaagay wuxuu yidhi isuga halkanaan ku kaatiyaa. meeshii buu aaday wuxuu is yidhi balaad fiirisid inuu dhintay iyo in kale. ilaahay baa kuu sama ogoleh subxaana allah laa xawla walaa quwata ilaa billah. meeshii ayuu wiilkii dhowr tooreeyood ku sii dhuftay oo uu yiri si uu u dhintay isagoo dhiig baxay oo maantoo dhan kul qorraxdii meeshii tacbaan ah alla dilaa dhinta. markuu dhowr tooreeyood ku dhuftay buu wuxuu is yiri ad dhagax weyn intaad qaadatid madaxa kaga baraajisi. subxaana allah jundigii ilaahay baa diyaar u ahaa. dhagaxii markuu qaaday ayaa waxaa ku soo baxay mas weyn. mas weyn baa inta soo booday buu yiri buu halkaa cunaha iskaga duubay. markuu iskaga duubay qayladiisii nimankii baa soo degey. waa la arkay ninkan jiran ninkan meesha yaalla iyo midkii waday oo caynkaana wixii markay arkeen ayay dadkii yaabba alla u keenay oo maskii bay isdheheen aad disheen oo ka furfurteenoo waa laga furfuri waayey. ninkii waa uu dilay maskii halkiibaa ninkii ku dhintay. wiilkii oo naf yari ku jirto ayay nimankii soo qaadeen meeshii gaarigu u oolaayo laamigii bay soo saareen. waxay sugeen bal dadku darawalinimo jirtay cid u kaxaysa gaariga kan. markaasay nimankii dad baa yimi meeshii wiilkii waa la qaaday dhakhtarkii baa la geeyey. qisadii wiilkii ilaahay baa nooleeyey. qisadii buu sheegay. gaarigii buu yiri lacagtii aan watay halkaasay ku jirtaa. gaarigii waa la baaray lacagtii meeshii baa laga soo bixiyey. wiilkii waa la daweeyey. wiilkii waa uu ladnaaday alxamdulilah wuu soo noolaaday. kii rabay inuu dilana meeshaas ayuu ku dhinta. marka walaalayaal dulmigu waa shay xun weeye. dulmiga aynu iska ilaalino inaynu dad dulmino aynu iska ilaalino. marka walaalayaal maanta intaasaan ku soo koobaya sheekadii maxaa cusub. aad iyo aad baan inii salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.